xaaladahan isbadbedelaya waxay u eg tahay meeshan inuu ka soo socdo dagaalka saddexaad ee adduunka marka la fiiriyo dowladaha isku hub aruursanaya iyo meesha hadda xaalku uu marayo waxaa la leeyahay meel sahlan oo la isku hadlayn kara maaha haddaba maxaa soo kornay dowladaha yurub qaarkood waxa ay muujinayaan suurtagalnimada weerar lagu qaadi karo dowladda iiraan taas oo ay ka shaqaynaysa nidaamka israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay cutub ka tirsan ciidamada nidaamka oo ka shaqayn doona sidii loo hubayn lahaa loona qalabayn lahaa ciidanka nidaamkaasi oo u diyaar garoobaya baa layidhi dagaal ballaaran oo waqti dheer qaadan kara dagaalkaasi oo la saadaalinayo meesha lagu qaadayo inay tahay waddanka iiraan haddaba dowladaha jarmalka iyo dowladda ingiriisku warbixinno kala duwan oo ay soo saareen oo amniga dowladda iiraan taabanaya oo dagaal ka degaya ayaan kugula wadaagayaa barnaamijkan intaa waxaan ku dari doonaa dowladda iiraan qudheeda waxa ay samaynaysaa xulufo ballaaran oo gobolka ah waxa ay ka faa'iidaysanaysaa weerarkii lagu qaaday waddanka qatar ee israa'iil ay ku dhaqaaqeen cali laarajani oo ah agaasimaha guud ee amniga qaranka waddankaasi ayaa waxa uu maanta gaaray dalka iiraan waxna uu la kulmay maxamed bin salmaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga dhinacyadan waxay ka hadleen iskaashiga gobolka ammaanka madax bannaanida waddamada islaamka iyo weliba sidii riyaad iyo dahraan ay u noqon lahaayeen laba waddan oo noqon kara saaxiib istaraatiiji ah haddii xaaladdu ay isbeddesho dowladda sacuudi arabiya ma waxa ay dareentay xaalad aad u adag oo muujinaysa in dalkaasi uu wajahi karayo waxaan wanaagsanayn iiraan qudheeda waxa ay wadaa dadaallo kala duwan madaxweyne mascuud basashkian iyo ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa waxa ay bilaabeen inay iskaashadaan iiraan markii hore loo weeraray cidda garab siinaysa waxay ahayd dowladda bakistan oo nuclearka ku hubaysan oo tiri haddii dagaalkan bariga dhexe uu sii socdo ma jirta cid dhaay ka dhammi doonta waa in si deg dega loo joojiyo haddaba iiraan ma waxa ay qarka u saaran tahay weerar mase waa booto iyo weliba warar kala duwan oo ka imaanaya dhinaca israa'iil qodobadaasaan isugu kaa xiri doonaa inta aan barnaamijka wada joogno soo dhawaada ayaan idin leeyahay akhyaaray meel kastoo aad joogtaan kuna soo biira youtube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantihiin ma og tahay in dhakhtar shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar dowladda iiraan iyadoo xaaladeedu ay horeba u adkayd oo mar kasta ay ahayd dagaalu joog oo saanadii ciidamada iyo miisaaniyadda ku baxaysaba la leeyahay waa la kordhinayaa ayaa haddana waxaa muuqanaya saadaasha in weerar lagu qaadi karayo wakhti kasta haddaba dowladda bakistan ayaa waxay iiraan ka codsatay in ay garab iyo gaashaan u noqoto haddii dagaal rasmiya oo dhammaystiran ay dowladda iiraan gasho waxaa jiray kulan aan si weyn warbaahinta loogu sheegin oo dhex maray mascuud basashkian oo madaxweyne ka ah dowladda iiraan iyo ra-iisul wasaaraha waddanka la yidhaahdo ee bakistan sabha shariif oo si weyn iskaga kaashanaya sidii u wada shaqayn lahaayeen waxaa la leeyahay sida wakaaladda wararka ee tasniim la yidhaahdo ee qorayso iiraan laga leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda islaamiga ah ee dalka iiraan dr mascuud basashkian ayaa habeenkii isniinta 15 sebtembar 2025 kulan la yeeshay magaalada dooxan ay isku arkeen ra-iisul wasaaraha bakistan shabha shariif xilligii lagu guda jiray shirkii degdega ahaa madaxda dalalka islaamka iyo jaamacadda carabta ayaa lagu yidhi warkan madaxweynaha dalka iiraan mascuud basashkian ayaa kulanka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in si degdega loo dhaqangeliyo heshiisyo hore oo labada dal ay kala saxiixdeen isagoo sheegay in iiraan iyo bakistan ay leeyihiin awood iyo fursado badan oo lagu ballaarinayo iskaashiga gaar ahaan dhinaca xuduudaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha waxa uu tilmaamay inay ka faa'iidaysanayaan fursadaha kala duwan ee u noqonaysa shacabka labada dal iyo guud ahaanba gobolka mid aad u wanaagsan madaxweynaha iiraan ayaa sidoo kale xusay baa la yidhi kaalinta bakistan ee taageerada joogtada ah ay u fuliso dalalka muslimiinta isagoo carabka ku adkeeyey in waxa uu ku tilmaamay tacadiga joogtada ah ee shacabka magaalada go'doonsan ku jira ee dowladda iiraan ay aad u garab istaageen xilligii dowladda bakistan aad u garab istaageen
xilliga iiraanna dagaalka ay ku jirtay iyana qudhooda ay garab weyn ka heleen sidaa daraaddeedna ay u mahad celinayaan haddana mar kale loo baahan yahay inay garab siiyaan dhankiisa ra-iisul wasaaraha bakistan shahbaaz shariif ayaa muujiyey in ay ku qanacsan yihiin islamarkaana rajo ay ka qabaan kulankan inuu noqdo mid ballaaran isagoo ballan qaaday in si toosa uu ula socon doono hirgelinta dhammaan heshiisyada labada dal islamarkaana uu amar ku bixiyo hay-adaha dowladda bakistan inay dedejiyaan hababka fududaynta iskaashiga labada dhinac shahbaaz shariif waxa uu sidoo kale cambaareeyay weerarada iyo tacadiyada israa'il isagoo hoosta ka xariiqay in dalalka islaamka looga baahan yahay mowqif midaysan iyo ficil wada jira oo lagu xaqiijinaya buu yidhi gardarrada iyo dhibaatooyinka ay la kulmayaan shacabka iiraan dhinaca kale marka la fiiriyo la taliyaha sare ee amniga waddanka iiraan ninka la yidhaahdo cali laarajani ayaa si deg dega ku gaaray waddanka boqortooyada sacuudiga waxaana uu la kulmay dhaxal suge maxamed binu salmaan labada dhinac sida ay qorayaan wakaaladaha wararka ee sacuudiga caawa waxay iska kaashadeen baa layidhi ka hadalka arrimaha amniga xaaladda gobolka bariga dhexe madax banaanida waddamada islaamka iyo sida loo baahan yahay in laga hortago gardarrada weerarada israa'iil wakaaladda wararka tasniim ayaan warkan ka soo xigtay waxay leedahay xogayaha guud ee golaha ammaanka qaranka ee dalka iiraan cali laarajani ayaa maanta oo booqday baa layidhi kulan rasmi ahna la yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga amiir maxamed binu salmaan waxa uu gaaray magaalada riyaad kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka iiraan ee sacuudiga jooga ninka la yidhaahdo cali riza canati iyo weliba cali bakari oo ah kaaliyaha arrimaha caalamiga ah ee golaha amniga qaranka waxaana diiradda lagu saaray arrimaha istaraatiijiga ah ee gobolka xaaladda dalalka islaamka iyo mustaqbalka amniga iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe isla wararkan waxay sidoo kale leeyihiin labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga dhaqaale ee u dhexeeya dahraan iyo riyaad iyagoo ku dooday ama isla lafaguray xallinta caqabadaha hortaagan ganacsatada iyo kor u qaadista maalgashiga wadajirka ah ee dhinacyada kala duwan ee muhiimka ah kulan kale uu la yeeshay wasiirka difaaca sacuudiga ayaa waxa uu noqday mid xiisihiisa lahaa oo si weyn u soo jeediyay warbaahinta reer galbeedka intii safarka uu ku sugnaa laarajani waxa uu la kulmay wasiirka gaashaandhigga sacuudiga amiir khaalid binu salmaan kaas uu uga mahad celiyey soo dhoweynta iiraan uu ka helay iyo booqashada uu ku joogay dahraan bishii hore waa sacuudiga ninkan ah kulanka ayaa sidoo kale lagu falanqeeyay hirgelinta heshiisyadii hore ee labada dal iyo weliba in labada mas-uul ay isdhaafsadeen aragtiyo ku saabsan iskaashiga difaaca iyo ammaanka cali laarajani waxa uu galabnimadii gaaray galabnimada maanta ah riyaad halkaasi uu ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin sacuudi ah uu safiirka dalkaasi ka mid yahay waxaana safarkiisa ku wehlinaya cali bakari iyo maxamed cali beek oo ah agaasimaha guud ee arrimaha khaliijka ee wasaaradda amuraha dibadda ee dalka iiraan socdaalkan ayaa noqonaya safarkii saddexaad ee dibadeed tan iyo markii loo magacaabay xogayaha golaha amniga qaranka iiraan isagoo horey u booqday ciraaq iyo lebnaan kani wuxuu noqonayaa waddan kale oo carbeed uu booqashadan ku joogo dhinaca iiraan marka la fiiriyo qarka ayay u saaran tahay in la weeraro marka la fiiriyo digniinta iyo weliba hadallada kala duwan ee ka soo baxaya waddamada carabta wasaaradaha waddamada yurub ayna wasaaradaha amuraha dibadda ee boqortooyada midowday ee u k ayaa maanta soo saartay safar degniin culus oo ay ku sheegtay mid aan caadi ahayn taasoo loogu talagalay muwaadiniinta britishka ah gaar ahaan kuwa haysta dhalashada labaad ee iiraan in ay aada uga feejignaadaan socdaalka iyo joogitaankooda gudaha iiraan qoraalka ayaa lagu sheegay in meeshu ay tahay halis dhaba islamarkaana mar kasta ay suuragal tahay in la joojiyo wasaaradda amuraha dibadda ee dalka jarmalka ayaa xilliga horey u sheegtay muddo 2 toddobaad laga joogo iyadoo ay jiraan hanjabaadyo isdaba jooga haddana waxay muwaadiniinteeda uga digta baa layidhi inay si deg dega ku aadaan gudaha waddanka iiraan dadka jooga ee dhalashooyinkooda watana ay si deg dega uga soo baxaan waxaa la yareeyey dadkii ka shaqaynaya diblomaasiyadda labada dhinac iyadoo dad kooban oo shaqo kooban qabanaya looga tegay safaaradaha
dhinaca kale wasaaradda difaaca Israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay dhisayso hay'ad cusub oo loo bixiyo golaha sare ee hubaynta kuwaasi oo loogu talagalay dardargelinta diyaarinta ciidanka ee ka dhanka ah waxa loo yaqaano wajiyada saddexaad iyo afraad oo macnaheeda lagu tilmaamay weerar ku socda Iiraan iyo Yemen labadaba. qoraalka wasaaradda waxa uu tilmaamay in Israa'iil ay tahay inay si degdeg ah u diyaariso weeraro lama filaan ah iyadoo casharo ka qaadanaysa dagaalkii dhacay 12 maalmood ee la soo dhaafay kaas oo loo yaqaanay libaaxa soo kacay isla markaana Israa'iil ay ku sheegtay inay gool military ay kaga gaartay Iiraan. Hasaatee caalamku waxa uu daawanayay burbur kala duwan oo magaalooyin Haifa ay ka mid tahay Tel Aviv